tartanka kubadda cagta ee laanta xisbiga kulmiye ee dalka Jarmalka oo u qabtay kooxaha dhalinyarada reer Somaliland ee ka dhisan wadanka Jarmalka oo ay ku talagaleen sidii ay isku dhexgali lahaayeen dhalinyaradaasi ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Kassel iyadoo halkaasi kooxihii ku guuleystay la guddoonsiiyay koob iyo bilado kala duwan waxaana ka soo qayb galay hoggaanka xisbiga kulmiye ee wadanka Jarmalka iyo dadweyne kale ugu horreyn waxaa xafladaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee wadanka Jarmalka Aadan Cabdi Aleel ayaa sheegay sida xisbiga kulmiye ay u go'an tahay sidii wax ugu qaban lahaa dhalinyarada reer Somaliland ee ku dhaqan wadanka Jarmalka waxaa kaloo iyaguna ka hadlay goobtaasi mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye ee wadanka Germany iyo dhalinyarada ka soo qayb gashay tartankaasi ayaa waxay cod dheer ku sheegeen inay uga mahad celinayaan xisbiga talada haya kulmiye oo la garab taagan yahay dhalinyarada reer Somaliland ee ku dhaqan wadanka Jarmalka waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan kooxihii ka soo qayb galay koobka aan urgnay ka gaar ahaan xisbiga kulmiye ee dalka Germany waxa kale oo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xisbiga kulmiye gudoomiye ku-xigeenka gudoomiye garabka haweenka xogayaha iyo dhammaan hoggaanka xisbiga kulmiye waxa kale oo aad iyo aad ugu faraxsanahay kooxda qaaday koobka iyo kooxda labaad ee ku guuleystay biladaha iyo inamadii ciyaar wanaaga iyo goolbeynta ku guuleystay waxa kale oo aad ugu mahadnaqayaa intii laga guuleystay oo aan leeyahay maanta oo kaliya ma aha ee berrina insha Allah koob kale ayaynu qaban doonaa maanta inoogu dhamaan maanta inoo bilaabay ahayd waxa kale oo aad ugu bashaareynaya in aan koobka labaad ku qaban doono magaalada Frankfurt isla bishan gudaheeda ama aakhirkeeda insha Allah billahi kariim halkan waxaan uga hambaleynayaa dhammaan dhalinyarada ciyaaryahanka halkan isugu yimi iyo kooxaha isugu yimi anigoo aad iyo aad ugu hambalyeynaya aad iyo aadna ugu faraxsanahay sida koobka noogu qabsoomay ee quruxda leh cid kasta oo maaragtay ku faraxsan aan ku dhiirigelinaya inay maxay ahaytoy ka soo qayb galaan insha Allah koob kalena aan qaban doono dhammaan aad baan u salaamay masharafta meeshan ka soo qayb gashay dhalinyarta sportska baxda sportska oo maanta halkan koobka ugu horeeyay halkan ugu qabanay Kassel magaalada Kassel waxaan aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha xisbiga gudoomiyaha xisbiga aad ugu mahadnaqayaa Aadan Cabdi Aleeli waxaan halkan aad uga salaamay gudoomiye ku-xigeenka Sharmaake iyo Saado oo gudoomiyaha garabka haweenka marka halkan waxaan leeyahay insha Allah dhawaan waxaan ugu balan qaadanaa anigu ahaantayda balan qaadayaan welina koobka aan waan qabanayaan wadaya hawsheedan dhameystiraya koobka Frankfurt lagu qabanayo kooxo dhan ka soo qayb galayaan ee Frankfurt lagu qabanayo insha Allah bisha dabayaaqadeeda ama bisha bilowgeega oo intaas kooxood oo Jarmalka meel walba gobol walba iskaga imanayaan kaasoo ku kulmeen dhalinyarta dhan isku keeni doono insha Allah marka aad baan warbaahinta u salaamaya dhammaan Mustafa iyo Cabdirashiid Cayte dhamaantiin aad baan islaam maanta waxaan halkan ku qabanay koobkaas oo aan ugu talagalnay ama aanu ka lahayn muhiimadda aanu ka lahayn ay ahayd ujeedaduna ay ahayd laba qodob qodobka koowaad wuxuu ahaa in ay dardargelinta xisbiga kulmiye dalka Jarmalka qodobka labaadna wuxuu ahaa isdhexgalka bulshada reer Somaliland ee ku nool dalka Jarmalka oo uu qayb ka yahay xisbiga kulmiye ee dalka Jarmalku ilaahay baa mahad leh way noo suura gashay inaanu qabano koob waxaan ku qabanay magaalada Kassel ee xarunta gobolka Haysan waxaa ka qayb galay 7 kooxood oo ka kala socday gobolada dalka nasiib wanaag way qabsoontay waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo nagala shaqaysay oo nooga geysatay karaan nooga geysatay waxaan mar labaad u mahadnaqayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee dalka Jarmalka Aadan Cabdi Aleeli oo hawl la xaalay qayb la xaalay ka qaatay dhalinyarada badisay ee koobka qaaday waan u hambalyeynaya dhalinyarada koobka qaaday qolada laga badiyayna waxaan leeyahay idinka laftiinna waan idin hambalyeynaya oo waxaan idinku hambalyeynayaa ciyaar wanaag baa soo bandhigteen baan leeyahay waan u hambalyeynayaa intii xidignimada ku guuleysatay iyo inankii xidignimada ku guuleystay waxaan u mahadnaqayaa oo kale warbaahinta iyaduna sida hagar la'aanta uga qayb qaadatay in koobkani qabsoomo waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha garabka haweenka waxaan u mahadnaqayaa xogayaha xisbiga kulmiye dalka Jarmalka hadalka badin maayo waxaan ballan qaadaynaa oo kale ballanqaadkani ka mid ahaa daafurka xisbiga kulmiye lagu doortay hoggaanka xisbiga kulmiye dalka Jarmalka oo uu ibafuru yahay noqon maayo kii ugu dambeeyay insha Allah bidmillaahi kariim noqon maayo koobkii ugu dambeeyay koobka ku xiga waxaan idin ballan qaadaynaa waanu idin sheegaynaa in Frankfurt ku qabsamayo
aynu dhammaan doonaan haddii ilaahay ka dhigo aynu dhammaan doonaan gobollada dalka Jarmalka maadaama kan qayb ay ka soo qayb gashay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dareenkaygu soo aad u kacsan shucuurtaydu ayaaba maanta waxaan aad ugu faraxsanahay xisbiga kulmiye oo dhalinyarada Kaasal degan u qabtay koobkaas oo dhalinyaradu aad ugu wada faraxsan tahay. waxaan ku filaynaa koobkan iyo koobo lamid inay noo qaban doonaan dhammaan xisbiga kulmiye. aniga shucuurtaydu aad waxay ugu kacsan tahay anigoo ku guuleystay gol dhalinta. waxaan leeyahay sanadkii sagaale talada dalka isaga qaban doona insha Allah guul baan rajaynayaa. waa tahay weli waxaan ku guda jirnaa dareenka ciyaartooyada ku guuleystay koobka uu dhigay hoggaanka cusub ee xisbiga talada haya kulmiye ee waddanka Germany ee ka dhacay magaalada Kassel. waan kugu soo dhaweynaa waxa tahay kabtankii kooxda ku guuleystay koobka bal ka war dareenkaaga iyo soo jeedinta xisbiga talada haya kulmiye laantiisa Jarmalka. bismillaahir rahmaanir rahiim. horta ogtiin magacaygu waa Mukhtaar waana ku faraxsanahay maanta guushan gaarnay. waxaana ma hadda iskale dadkii meesha maamulayay xisbiga kulmiye laantiisa ka socotay ee Jarmalka dhammaan waxa halkan uga mahad celinaa dhammaan intii koobka ka soo qayb gashay. annaguna sidoo kale aad baan ugu faraxsanahay. waxaana leenahay dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. farxadaydana maanta dib ma qiyaasi karaba waayo wax horta noo farxada nahay dadka ku nool Jarmalka gaar ahaan magaalada Kassel. koobka sida quruxda badan noogu socday oo si qurux badan noogu soo gabagaboobay. dhammaanna way mahadsanyihiin dadkii ka soo qayb galay. tartanka kubadda cagta ee loo qabtay dhalinyarada reer Somaliland ee ku dhaqan dalka Jarmalka ay qabteen hoggaanka cusub ee xisbiga talada haya kulmiye ayaa noqonaya tartankii ugu horeeyay ee dhinaca kubadda cagta ee xisbiga kulmiye oo qabto dhalinyarada reer Somaliland ee ku dhaqan waddanka Jarmalka si ay isku bartaan. Cabdirashiid Cayntee, Home Cable TV, waddanka Jarmalka.